daawadayaasha qiimaha qadarinta xushmada naga mudan subscribe saara janalkan muuqaalkan waxaanu ku lafagureynaa saacadihaynu kasoo gudubnay baraha bulshada waxaa si aada u haystay sharma boy oo isagu soo gudbinaya muuqaalo kala duwan hordhac u ah hees uu doonayo in uu dabka kasoo qaado. haddaba heestan ay dadku aada u saluugsan yihiin, sidoo kalena dadka qaar ay wax iska weydiinayaan bal miraha iyo sidoo kale laxanka heeskan. sharma boy ayaana dadka dhinaca instagramka waxa uu kusoo bandhigaya sawiro hordhac u ah heeskan iyo sidoo kale muuqaal uu saaran yahay codka heeska uu doonayo inuu soo saaro. haddaba dhawaanayd markii baraha kala duwan ee bulshada si aada looga falceliyay, sidoo kalena ay qabsatay hees sharma boy uu soo saaray oo aada moodo in waxoogaa imika ay ku jirto, sidoo kalena heeskaasi inta badan marka la eego saameynteeda in la is oran karo waxay ahayd hees muddo 2 isbuuc ka hor lasoo geliyey youtube-kiisa, halkudhigeeduna waa isoo wac. waxaan rajaynayaa heeskaasi iyo heese lamid ah midda xigta aan iraahde ay noqon doonto mid tani ka xiisa badan. waad la socoteen muuqaaladii kala gudsanaa ee sharma boy uu soo saarayay dhinaca heesaha iyo sugaanta. marka la eego fanaankan waxa uu sii laba jabaarayaa dhanka fankiisa iyo sidoo kale hibadiisa, ereyada uu soo gudbinaya. inta badan waxa uu sheegay in heesihii hore ay hayeen kuwo markaasi laxankoodu dhalintu maanta jiilka hadda jira aynan aada ula dhacsaneen. sidaas awgeed waxa uu leeyahay raabku waxuu ka mid yahay heeso, laakiin anigu waxaan ku heesaa buu leeyahay murti oo laxankeyga iyo sidoo kale ereyadeedu waa kuwo israacsan. sharma boy oo wax laga weydiiyey bal mustaqbalka dhow waxa uu doonaya inuu noqdo, inkastoo dhowr maroo jeer uu su-aale ka jawaabay, laakiin xilli waraysi uu siiyey isagoo ku sugan maraykanka telefishino iyo sidoo kale warbaahin si madax bannaan uga howlgalo dalka maraykanka, bulshada soomaaliyeedna ugu soo bandhigaya sida diiran ee dalkaasi maraykanka ay ugu soo dhoweeyeen iyo heerka maanta fanka uu ka taagan yahay. waxuu aada ugu mahad celiyey, sidoo kalena bogaadin hawada u mariyey qaar ka mid ah dadka soomaaliyeed, kuwaasi oo shacbiyad xooggan u muujiyey. taasi marka laga soo tago, sidoo kale waxa uu u hambaliyeeyey dadkii gacan ka geystay fankiisa, kuwii aada u soo dhoweeyey heesihiisa, islamarkaana ay ugu badnaayeen dad markaasi doonaya in horumar iyo heer sare ay gaarsiiyaan. si kastaba haatee fanaankan ayaa noqday fanaankii ugu xamaasada badnaa dhinaca social media marka la eego. waxaan la oran karaa waxuu ka mid yahay fanaaniinta hormuud kaga jira, fanaaniinta lagu jecel yahay imika xilligan la joogo ama sabankan. haddaba sharma boy wareysiyadiisii ugu dambeeyey ee uu ku sharaxayay heesihiisii dhowaan waxa hees uu soo qaaday ku jira ereyo jawaab uu ku siinaya dad badan oo faafinaya warar la xidhiidha in sharma boy qaliil looga sameeyay xagga afka ama carabka. dadkaasi ayuu jawaab kulul siiyey, inkastoo xogtaas aynu kasoo xigana qaar ka mid a dad iyagu xoogo kala duwan oo sharma boy ku saabsan lasoo gaarsiinayay, laakiin sharma boy ayaa iska fogeyey, beeniyey warka la xidhiidhay in isaga la qalay. iminka wuxuu leeyahay dabka ayaan kasoo qaadayaa heesihii ugu waaweynaa uguna dambeeyey oo aan filaya in ay gilgili doonaan buu leeyahay bulshada soomaaliyeed dhinaca youtube-ka marka la eego iyo baraha kala duwan ee bulshada. haddaba fanaankan soomaaliyeed waayihiisi faneed oo uu kasoo hanaqaaday magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliyeed, sidoo kale tartan aada u culus ugu galay dhinaca fanka iyo sidoo kale marka la eego raabka, marxaladii kala duwanaa ee isagu soo maray, dadkii ay isqabteen uu ka taariqeynaya daahir calis oo uu ka mid yahay, maanta heerka fankiisa uu joogo, dhibaatadii uu usoo maray, maanta heerka uu taagan yahay, iyo sidoo kale waxa uu hiigsanayo mustaqbalka dhow. sharma boy marka la eego dhinaca youtube-ka fanaaniintii hore sida fanaaniinta kale ah markaasi guuladsiinba, fanaaniinta murtida iyo sidoo kale laxankoodu dadku ay aada u jecel yihiin, heeso badan ereyo wanaagsan ay ku jiraan soo qaado, oo uu ka mid yahay safaan halac, oo uu ka mid yahay guuladsiinba, oo ka mid yahay marwaan. sidoo kale fanaaniinta xaggaas iyo markaanu kasoo laabto finland, haddii aan imaado sweden, isla dalalkan scandinavianka ka mid ah, waxaa ka mid ah fanaanka la wada jecel yahay faysal xawaase. waxaa sidoo kale ka mid ah fanaanka kale isna ka mid ah fanaaniinta aada loo jecel yahay cali dhaanto, fanaaniin tira badan oo reer scandinavianka ku nool ayaa iyaguna ah kuwo markaasi dhinaca fanka marka la eego fanaankan marka loo fiiriyo dardarka iyo sida waktiga fankiisa u gelinayo iyaga aada uga gaabiyay. muddooyinka ugu dambeeyana heesahoodu ma aysan muuqanaynin oo fanaaniin waxay hayeen, waa la dareemi karaa mashquulka qofka bini aadanka uu gelaya, fanaaniin howlo kale u jeheestay, islamarkaana fanka waxoogaa gacanta bidix ku qabtay oo ama aada markaasi uga gaabiyay. laakiin sharma boy marka la eego
waxa uu dhiirigelin u yahay dad badan oo higsanaya oo fanaaniin ah oo doonaya in ay gaaraan heer ka sareeya heerka uu taagan yahay. fanaankan oo gadaalka soo gaar ahaa fanka muddo 2 sannadood oo fanka uu ku jiray ayuu heer sare markaasi ka gaaray. waxaana dhinaca youtube-ka marka la eego isaga uu aad uga horeeya fanaaniin badan oo fanka ku jiray. waxa uu haystaa dad kor u dhaafaya ilaa milyan. iskoorkaasi ayuu jabiyey. waxaan la oran karaa kolley tayadiisa iyo sidoo kale qualitigiisa dhinaca fanka marka la eego iyo sida dhalinyarada ay u jecel yihiin ayuu ku gaaray kuna muteystay kaalintaasi iminka dhinaca fanka marka la eego. haddaba haddii aan kusoo noqono marka heesaha uu iska soo daba saaraya fanaankan muddooyinka ugu dambeeyey inkastoo hees dhowaan uu soo saaray uu ku sheegay inuu doonayo inuu soo laba kacaleeyo islamarkaana uu soo rogaal celiyo, haddana tani markii dalka maraykanka u gaaray dadku waxa ay faafinayeen warbixino kala duwan. iminka xogo kala duwan ayaana soo gaaraya fanaankan 3 heesood oo imikaba diyaar u ah ayuu doonaya inuu soo daayo midna uu soo daayo. waxaana imika qoraal uu soo dhigay dhinaca instagram-ka uu ku yiri xanuun miya. dad badanna waxay leeyihiin awkaabe soo daa heeska oo ka yaabi ummadda ay leeyihiin. sharma boy waa kuwadana ay leeyihiin dad badanna waxa ay leeyihiin fanaanow isku day in aad adiguna dhinaca khayrka aad iskugu daydo inaad u jihaysato. haddaba markaa la eego markaa taageerada iyo sidoo kale qaabka fanaankan uu isagu dardarka uu ku socdo guusha labinta uu ka gaarayo fanka soomaaliyeed dhowaan ayuu ka warbixinaya arrimo kala duwan. showyo badan ayuu ku qabtay dalka maraykanka. waxuu kusoo aaday showyadii ka dhacaya magaalada minneapolis gobolkaasi minnesota ka tirsan showga sanadlaha ee lagu talagalay madxafka in lagu qabto. sidoo kalena fanaanka sanadka lagu abaalmariyo fanaankan hormuud ayuu ka ahaa. sidoo kale waxuu ka qayb galay bandhigyo tiro badan oo dad badan isku taxaluujiyey in fankiisa ay soo gaarsiiyeen dalka maraykanka u qabanqaabiyey bandhigyadaasi kulamo kala duwan oo ka qayb qaadanaya. iminka dadka faangaraynaya fankiisa dalkaasi maraykanka iyo stuudiyaha iminka uu ku sugan yahay ayaa moodaa in ay ku dhiirigelinayaan in uu sii ballaariyo siina laba jibaaro heesaha fanaankan uu soo saaraya marba marka ka dambeysa. fadlan subscribe inoo saar janalkan haddii ay tahay markaaga koowaad ee aada soo booqatay lagaree muuqaalkan la wadaag asxaabtaada. iminka un haddii aad kusoo biirtay gambaleelka furo waxaad noqonaysaa daawadaha koowaad wax allaala wixii halkan aan kusoo gudbino hela uguna hor daawada. fadlan qeybta dambe waxaad isku daydaa commentiga qeybaha hoose ra'yigaaga, fikirkaaga, aragtidaada iyo sidoo kale faalladaada in aad halkaasi inoogu soo qorto. waxaan ku rajeynaynaa in maalinkaaga uu si wanaagsan kugu dhammaado. waxaana ku leenahay taniyo maqalkeena xiga waxaan idinku dhaafeynaa sidaa iyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.